dhibaato weyn oo xanuun leh hadduu qofku geysto ma cafin kartaa oo noloshaada hore ma usii wadan kartaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. seetiin saaxiibayaal, anigan ay jeediin maalin maalmaha kamid ah anoo yar dugsi dhex dhiganayo abaa waxaa gabar aan saaxiibanahan ciyaari jirnay baa waxay igu sameysay. waan isdagaalnay, waan heshiin weynay, ilaa hadda taa ma garanay waxaan isku dagaalnay. waa isdagaalnay, markaan isdagaalnay way iga xoog badisay si xune aan isku dagaalnay. waxay iga qabsatay meel wejiga isha korkeeda iga qabsatay qaniinyo xun ee qaniinte hilibka isha korkeeda wuu iga soo dhacay. marka waxaan sameeyay gabadhii waxaa ligu hortko reerka waa igu tacaaleen waqti dheer ku qaadatay inay maxaa la dhahaa oo liiga daaweeyay meesha jugti gaartay. hadda gabadhaas ma noolo, way dhimatay, way naga hoysaa, Allah u naxariisto. marka reerkaygii markaan guriga imid oo aan arkeen iskuulka isku soo dagaalna samaahan, markaan guriga imaan darisna waan ahayn. markaan guriga imaaday oo reerkii arkeen dhibka xanuunka is gaarsay, waxay i dhaheen waxaana macquul ma ahan qofkii ku dila sheeg. ilmaha marka qaarkood mala aamini karo markaan ku dhahayo waxa waaye wax ani soo sameeyay waan diiday gabadha inaan sheego. waan diiday wax kasta la suubiyay, waan diiday inaan gabadha sheego. iskoolka meel ka soo dhacaan aabahay wuxuu taagan yahaybo gabadhaydii haddii aan meel ka soo dhacay gacan ma jabin, lug ma kaa jabin, canka ma kaa dilaacsanin, isha korkeeda hilibka usoo go'i karaa. qof meeshaan meel ilka ku taalo waaye, qof unbaa kaa goostay. meeshaan waa meel la qaniye oo ilka ku taalo oo hilibka soo jarmay inaan sheego. ani ooyinaaba jabsaday, marka waaba diiday inaan ka hadlo. meeshii maxaa la nabarka liigaga daaweeyey. su-aashaas weydiinteeda waqti dheer ay ku qaadatay waalidkay inay ogaadaan. allah yarxam, hadda alla way dhintay, way naga hooseeyaan. hooyadii aabahayba jannatul firdaws ala allah ka waraabiy inta muslim ah. ilaa hadda qabriga ku galeen maanan u sheegin, cabsi daraadeedaan u qariyay. ma rabin inaan maxaa la waalidkay ogaado in oo qof askaas soo dagaalna oo suxil ii soo galay. dagaalkeen adaa ka mas-uuliyeed waa ku jirta la dhahaa isleeyahay. cabsiya ugu jirta ma aqaan, waan baqay, waan diiday qof ibn aadan inuu yahay qofkii goostay. waan diiday inaan u sheego. marka waxay sameyn karaan ma laha. marka waxay sameeyeen inay maxaa la caafimaadkay ku dadaalaan oo la ilaaliyo oo la fiiriyo maalmaha sidii wax ka dambeeyay, la ogaado xaalkayga soo iyo activity-gayga la ogaado. meeshiina waa la ii daaweeyay, waqti dheer ku qaadatay, way ii daaweeyeen. hooyo aaba ii daaweeyay, Allah u naxariiste. marka horta ciyaalka ma la aamini karo, sabarkaa maanta ka hadlayna, laakiin aaminkana waa nigu soo daraa. ciyaalka ma la aamini karo, ilmaha in la ogaado qasab waaye. maxaa la dhahaa haddaan ilmahaaga ka warhaynin marka qaarkood dhib xun soo gaaray, cabsi daraadeed adi ay kaa cabsanayaan bay u qarinayaan. marka ilmaha way fiican tahay mar kastaba inaan laga dhigto saaxiibo. aniga aad iyo aad diyaar maxaa la dhahaa iskugu dayaa oo mar kastaba aan xoogayga saaraa ilmahayga inaan la sheekaysto. qof wejigiisa bedelmay oo si kale haddaan arko inaan la fariisto waqti siiyaan jecla oo la sheekaysto. dad waaweyn waa laakiin waa la sheekaysanaa. hadda wiilka yar oo ayeeyada aan wahay ciyaalka iyadoo hataa markaan la sheekaysanayo waxaa ugu sheekaystaa maxaa la qof weyn camal ugu sheekaystaa si ay maxaa la dhahaa u bartaan inay wixii qalbigooda ku jiro ee banaanka iskaga soo dhigaan. xataa mararka qaarkood inaa isku facnaa camal uu hadlaa hooyadiisa abiis bay ku qeyliyaan. waxaan dhahaa iska dhaaf anaa oo ogolaaday saa inuu igula hadlo. sababta ah waxaan u fasaxay wax kasta inuu ka hadli karo. wuu yaryahay 5 sano jiraa laakiin waan u ogolaaday. gabadhan waxay jirtaa 3 bar, wiilkana wuxuu jiraa 5 6 usii socdaa. marka waa u ogolaaday inay waxay rabaan ku hadlaan. marka waxay rabaan ku hadlaan wax dar lama ogolo, laakiin waxay rabaan ku hadlaan waa u ogolaaday si ay qalbigooda iskaga furaan. marka waxa waaye ilmaha horta ko saaxiib laga dhigto waaye way adag tahay. dad anaga waxaan nahay dictatorial aan nahay. marka wadankaana aan imid xataa rabtigayga markii ciyaalkayga ay yiraayeen, marka ciyaalku dayaan waxa dhigi jiraan Afrika ka imaaday, Soomaaliya ka imaaday. ha isku dayin waxyaalaha qaarkood markay ugu dhaqmayaan arko. ha isku dayin waxaan aniga ma ka qaadanay xaq wadankaas ka imaaday dictator ah, laakiin gadaal waa iska soo dhaqay, waa isnadiifiyay. noloshaada waa isfiirinaysaa, saa kusoo kortaa isfiirinaysaa, waxyaalaha qaladka ah soo bisay fiirinaysaa. ilmahaaga waxaas qaladka waad ka ilaalinay, adigana wixii sax soo bisane waa kusoo diraysaa koriishaha ilmahaaga. marka aan warkeena kusoo sheekadeena kusoo noqon oo ahayd cafiska. marka gabadhaas dhibaatada ii gaarsiisay ilaa hadeerta anoo qof weyn dhibka jug yar waaye. jugteeda haddii la fiiriyo maqaarkayga isha korkeeda weli wuu ku yaalaa. waxay ahayd meesha 50 sano ka hore ahayd. marka still waa haddaa la fiiriyo wixii waa igu yaalaan.
oo qaniinshada way iga taalaa isha korkeeda marka waxa waaye gabadhaasitod waa iska cafiyey sababtaa waa cafiyey wax kalena ma aha sanooyin badan aan maxaa lahaa qalbiga ka dhacay oo wejiga dhan wejigayga haleysa goosatay yacni qalbigaan ka dhacay sanooyin dhan waxaan dhihi jiray yani markaas arko weji meeshaas iga goosatay markaan arko qalbigaan ka dhaci jiray adiga warkii oo gaaban marka hadeertaan laakiin cafi masaabaxay iga tahay ilma yaraan ahayn waxbana ma ogeen marka waa iska cafiyey haddii dhinacayga wax labadan baa isdagaalna laakiin dhinacayga dee wax jiraan oo dhinaceeda haddee wax jiraan oo aniga maadaama wada dagaalnay oo xaqaygu ahaa korkayga ay goosatay laakiin maxaa la dhahaa ani uun cafi masaabaxay iga tahay waa cafi gabadhaasitod ilaahay raxmadiisa jannata firdows calaha ku geeyo marka walaalayaalow cafiska say isku tihiin haddii oo qof maxaa la dhahaa dhibaato ku gaarsiin inaa cafisid maxaa faa'iido ka helay aniga faa'iidada aan ka helay inaa cafiyo gabadhaas waxaa ka helay qalbigayga dhinaca madowga ku jiray waa in nadiifsame happiness ay soo galay sababta ah dhinacay ku dhagneed oo qalbigayga oo markii aan soo xasuusto ama wejigayga arko waxaan dhihi jiray markaan yaraa hadda waa weynaada ma waxaas maba kala jeclay laakiin markaan yaraa markaan arko gaba yar aad tahay oo maxaa la dhahaa oo wejigaaga markaa aragto waxaas leedahay humayadii wadno inta wax lay sheegay oo ficnaan marka ilma yarna waa ahayn allahana cafiyo ayadana allaha cafiyo marka adise isku tihiin marka dadka inaa cafisid haddii qof jug ku gaarsiiyo oo dhibaato ku seeyo qalbigaaga ku xiratay waxaan kula talin lahaa raaxada aniga aan dareemo si aa u dareentid iska cafi qofkaasitod qalbigaaga ku furmaayo cafiskaas qofka cafinaysid adigay faa'iida kugu jirtaa waxaad dareemaya qofkaas meesha ku dhegnaa inaa free noqoto qof oo shimbiroo kale intood buubaysaa noqonaysaa free ka noqonay qalbigaaga meesha ku jirtay waa ka fujinay marka intaasaa rabe maanta inaan ila wadaago strawberrygaanitod oo beeraha aan aadnay maalinta oo aadnay mar hore ahayd ila fiirsada waad mahadsantihiin jazaakum allahu khayr subscribe-ka iyo thumbnappka iyo share-kana ha iga loogin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu